waxaa geeriyooday bukaankii ugu horreeyay ee taariikhda inta la xasuusto markii ugu horreysay lagu beeray kili doofaar. Bukaankani oo dhowr bil ka hor lagu beeray kilida doofaarka ayaa ka sheeganaya xanuuno kiliyaha xaggooda ah, iyagoona ay gaarsiisnaayeen heer kiliyihiisu ay noqdeen kuwo howlgab ah oo aan shaqaynaynin, kuna noolaa in loo dhaqo kiliyihiisa markasta. Dhakhaatiirta qalliinkan sameeyay oo la socday xaaladda ninkan ayaa sheegay in geerida ninkan aysan ahayn mid la xiriirta sabab ku timid kilida doofaar ee loo geliyay, xitaa beddelkeeda ay ahayd xanuun dhaxal ah oo ninkan qabay, kaasi oo sababay in uu u dhinto. Qalliinkan oo ka dhacay dalka Mareykanka ayaa laga fuliyay isbitaal lagu magacaabo Massachusetts General Hospital oo ku yaalla magaalada Boston. Dhakhaatiirta ama isbitaalka oo bayaanka uu ka soo saaray geerida ninkan ku sheegay in ilaa 4,000 oo bukaan oo ka sheeganaya xanuunada kilyaha oo u baahan in kilyaha loo beddelo ay ku jiraan safka ama leenka sugitaanka, ay rajo ka qabaan inay helaan kilyo beddel ah, taasi oo aad u adag inay bukaanadaasi wada helaan. Sidaas darteedna ay dhakhaatiirtu iyo khubaradu ka fikirayaan in la kaalmaysto xayawaanada kale ee dunida ku nool haddii ay jirkooda qaadan karaan aadanaha. Tan ayaan ahayd isku daygii ugu horreeyay, laakiin nasiib darro bukaankii ayaa geeriyooday. Inkastoo dhakhaatiirta hawshan fulisay ay diidan yihiin in geeridu ay la xiriirto kilida doofaar ee ninkan loo geliyay, taas beddelkeedana ay sheegeen in ay tahay xanuun kaleeto oo ninkan sababsaday. Ninkan oo ahaa 62 jir ayaa lagu magacaabi jiray Rich Sleiman.